taariikh deeda iyo asalkeega iyo dadkeega iyo taranta dadkoogii iyo lahaayeen iyo tag inay leedahay iyo waxyaabo badan baa la eegi jiray waxaa la odhan jiray taf ayeeyo ka day oo macnaheedu yahay shisho u baro gabadha aan markaaba aad weynaad boqolkiiba boqol barata waxayna caddaynaysaa xadiidkii raiiska rasuulka iska eegu lahaa sooma inaad isku daayintaan taamaasaa idinku eh يعني أنا مالي فيسبوك إسكارتين الناس كلها بودين ما هذا ساسا ليش قبل ده نشيد واحد بلا من جديدنا دون كحرشة إلى يحرشة وحلا ما أنت أي دلتو أيا ويل لبدا أبو أيها قبل داسي أنا أيها قبل كيجا إسكودي أنا يجيب يا صدور يا لوري جري دوم بالو حدي جري قبل داسي يا دوم حدي بالله لوري جري كدي بلادنا ولا دولي جري ويدونا ثاي لوري جري رك كلمة شيء كسنة يا كدي بهذانا لو جوجل فريسين جري قبل دامر كاسي iyadana kulkulin badan baa lagu waxa la sheegaa gabdhuhu miyiga marka la joogo boqolkiiba 5 shaqada iyaga gacanta ku leeyahay xoolaha waa la kala lahaa qaybna dhex bay ahayn baa geela marka gaar lahaa arigana dumarka ayaa lahaa lo'duna labada ka dhaxaysa baa laakiin gurigeedii lagu nooliyay yaa sameeyay haddii gurigeeda dhigteeda iyo dhulkeeda la raadiyay tahay haddii haylaamadeeda iyo dhammaan wuxuu ka kooban yahay dhanba gabadha markay yar tahay ee dowladda jiray gaadhay bilaabiis waxa la bariyay sida loo sameeyo farshaxka nolosha dhammaan gacanta ku haysa biyaha iyada soo dhaaminaysa cuntada iyada karinaysa xoolaha iyada lisaysa ya waxa ay hawl haysay hawl yar maahin ilmaha sidaas isla mid ah tarbiyeynaysa nolosha marka ma ahayn nolol gumaysiye nolosha qalafsanida nolosha meesha raaxa ma oolin ninna ma nasanayni gabadhna ma nasanayni marka waxa la yiraahdaa gabadh baa la gumaysanaysa ma maxay yeelay meesha ma oolin wax raaxa la yiraahdo ma oolin wiilku marka uu yar yahay isagoo shanjira geela maarka dusha la saara geela la dhaxay maalintii oo uu daba soconayo gaawaha uu sinayo marka uu yimaado geela la soo hooyo ku yar isku daayihiin ayaa loo bixin jiray iska celi loo jiray lama kala qabanayo digita la iska dhigay haddii laga adkaado habeenkaasi caano lama sii jiro qofkan maxaa lagu carbinaya marka ragalnimo iyo geesinimo iyo cadina soo celiya wuxuu sheegay oday adeerkay wuxuu yidhi waxay samayn jireen xitaa ragga geel jirku waa dadka ugu naxariista daran garan karta waxay samayn jireen wuxuu yidhi anigoo saas iga hurda ayaa wuxuu soo qaaday buu yidhi shilintu marka ay dhiigga cabto way bartaa qofanay noqotaa soo qofanaa la soo qaada indhaha lagu iga mariyey markaabuu geelmaan wax la yidhahdo waxay jireen miduu markay yaryihiin timo yaroo sida bustoo kala bixiyaan xagga kursiga ku yeeshaan kaa intuu soo qaaday ayuu saa iga wada nabay markay isku engegeen ayaa la soo qaatay buuxul qod xale oo leela dhahay kolba geed baan jeedaya kolba ood baan jeedaya digita laakiin ninkaas wuxuu ka dhaxlay inuu cabsi ay ka gurto waxa la dhahaa wuxuu iga jeegayay maalin habeen anoo geel kaliya eegay buu habeen u seexday dadku de gobol badan ma haysanay qofku kundhata heer noo barkan jiray uu dee hadduu hau bataay ko yar bu haysanay marka intoon marada iska saaran oo barkaday oo ku dhex jiray ayuu mas'aanon warhay soo socday oo xagga xumurta markuu ii maray ayuu isduubay duubu iska fadhiistay markaas wuxuu sheegayaa waxaan dareemay masjid alcadis waxaa lagu yaqaanaa culays iyo qabow badan yaa arkay waan shakiyey waan miyir bantoon iskaga duway dhinacaan maradii hoosta ka eeg oo isagoo soo eegay intoon gacantaydii dhinacaan ishaan ka eegay intoon gacantaydii bixiyey xaggaa dibadda soo mariyey baan luqunta qabtay mudo saa intoon dadka ugu tartaribato halkuu ka yimid geesinimadan waa carbintii hore soo maha ya adiga haddii ilmeeras diritiin hooyadaa intee dhaqaaqday ilmahayga lagama taaban karan kara soo maha laakiin kuwa ruuxa iska celi haddaan iska celin hal lagu dila baa loo jira waa sidana loo soo barbaarinaya weeyaan dumarku marka la xulanayo waxaa la iska eegi jiray gabadhu inay hunguri inay wax cunto gabadha cirka weyn lihi waa la iska eegi jiray
maxay ilaa ilmaha ay barbaaranaysa oo guriga ku barbaaranaysa waanigi la yiri maxaa laga duulaya waxa la diidaya waxa weeye maxay ummadu ham hii loo socota hunguri baa laga dagaalamaya soma marka waxay oran jireen dumarkana cirkeed bogati iyo casarkii seexato daran bay jireen waqtigii hawlba ay taalay hungurigeedu intuu ka shaqayso oo habeenka casarkii waqtigii hawsha ugu daranay xoolaha soo weynayeen wax la kala xiriir un waqtiga ka seexato ugu daran bay jireen saytamaamaya ina iyo hooyada ilmaheeda gabadha ay cabin jirtay waxaa la sheegaa ragga sida gabadhaba doqonta noqotay nin guursado loo waayo ayay ninkuna ka doqonka ahayd mise yar liitahay gabadhaha aan la siin jirin marka inta badan waxaa la odhan jiray inaabtidii iyo haloo raadiyo dad qaraaba loo raadin jiray si loo asturo marka hooyadeed baa waxay wiilka hebelaya waa inaabtigaaya abtigaa dhalay ayaan kuu dhisaya bay ku tiri gabadhiina way garanaysaa ninka waa nin casoo qurux badan laakiin de wax matara ah way iska diiday dhowr jeer way ka caamustay dhowr jeer markay ka caamustay hooyadeed intay u cadhootay ku tiri maxaa dhacay way u jawaabtay markaa gabadhii waxay sugaan bay ugu jawaabtay waxay tiri ma qarsooma qayraanta cali mana qasaalnayni gaashaanku waa qolof warmuhu qaallabeen ma lehe gartoo laysku qabsaday geedahoo laysku qalanaayo kuwa hadalka loo qaybiyee qaadha noqon maayo qayladu hadday soo dhacdo geel la kala qaado inta uu singaha soo qabsado gaash ka rogan maayo qab hadday martida soo tidaa naf iyo neef u qali maayo qoton been ah qurux aan wax tarin qoobka hay gelini baa jira marka afar shay ku tilmaamaysa maxay ku tilmaamaysaa barkii hore la xidhin jiray harkaha dibneed tudal zubcin harkaha riyaa jirka baa la xidhin jiray marka kuwa geesigii waxay samayn jireen harkaha waa la midki jiray oo aad loo midkii wax khafiifa laga dhigo oo la qurxiyo asal la geliya maradiiba dabar cajiib laga dhigay marka isagu xitaa muu midkii meelada harka intii sanafo sidii uu ahaa uu xidhay ninka maradiisa hagaajin ila waxay leedahay talabaadi waa gaashaanka oo haddii dagaal dee loo kaco nin maartay dagaal dee dadka ka celinayo maaha haddii gar loo fadhiisana nin hadalku odhanayo maaha haddii marti ay imatana nin xoolo looga doodsiya maaha dee ma qofka qalfoofka ama quruxdiisa uma raacanaya walaal xikmadii yaa ka marka buuqu goobaanta iyo suudiyo wuxuu leeyahay murtida aadka u fara badan ayaa ku taxan waa iska qaafeynaa dumaashida gabadha dumaasha oo dhinaca ragga dhinaca dumarka ba dhacda inta badan gabadha lagu celcelinayaa la moodayo gabadha laguma celcelinayo laba arrimood baa la eegaya ilaa laba reer markaad gabadha iyo wiil la isku dhiso dadkii gacantooye iyo xidhiidh adag baa ka dhexayso maaha xidhiidhkaasi inuna kala goyn darteedu waa kow oo sii socdo wiilkii markuu gabadhii ubad baa laga tegay ubadkaasi nin aanan dhalin uma naxariisanayo marka inanka walaalkii mise in adeerkiisii la xijaclu markaa u yeelanaya sidaasoo kale gabadha haddii ninka ka dhigantana xigsiin baa loodhan jiray iyada oo gabadhan inay dee ubad ay habareer u tahay si fiican bay u korin laakiin gabadh kale marka la keeno ubadka kale ay dhashay sideedii ma noqonayo nolosha markaa waxaa laysku ahaa buri dad isku dir iyo daabaan baa laysku ahaa buri uu sheegay dir iyo daabaan waxay garan tahay waa dad abisko waa gudun iyo daabkeedu ayaa laysku ahaa dadku saa isku dhex geli jiray dadku laba buu ahaa dadaad xigta tihiin iyo dadaad xidi tihiin ubay ahay labadaa baa la kala ahaa waa markaa markay dhibi dhacdo taaba laysku waray abti iyo tob baa loo kala baxay marka waxaa la odhan jiray inani waa meel xujoog iyo inani waa ahaan abaarta inani waa meel xujoog waxay leedahay maalinta ay kuugu darantahay meesha aad qofka ku oqon marka aad tagtid dee reer aad waxbaba isku hayno laakiin gabadh aad u dhistay
gabadhaasi markaa waxba meel xun bay kuu joogtaan waxbay ku taraysaa waxay odhan jireen waa haan abaartaa marka la leeyahayna meel ay deegaajo iyo ay taallo oo meel aad cid kuu joogtaana ayna jirin waxay la mid tahay markaa adigoo geed hoostiitoo lagu fadhiisiiyo haan cana ka buuxa lagu siiyo kale gabadhii aad reerka aad siisay waxaa kaloo jiri jira waxa la dhaha heerin gabdhaha inta badan dadka ninka tegay gabadh ka tegay waa la isku dhisi jiray hay inta kale maxaa la samay gabadha markaa gabadhii ka yaray la guursado amoonaysa inta indhaha la dhaadhaafiyo dee inay tahay gabadh aan gaari ahayn loo arko iyaguna saa kuma joogi jirin waxay intay is urursadaan bay israaci jireen oo reero kale tegi jireen oo ay guurkoo doonan jireen weliba reerka laga yaqaan maa reero kale tegi jireen waa heerin baa looga jiray iyagana waxaa raadsan jiray dee raggii kale ee maaragtay maxaa dhahdaa lamidka ahaa ee gabdhuhu ay diideen dee iyagana saasoo kale raadin jiray marka waxaa la tilmaamaa 4 gabdhood baa markaa reer bay degeen oo de markaa heerinkaa bay tegeen baa layidhi waa la soo dhaweeyey markaa neef baa loo qalo neefkii oo de sidee u karkaray ya ayaa la hordhigay markaa aqal halka dambe la fadhiisto bal waxay ku hadlayaan oo caqligoogaa la yar maramaraya balta ugu fiican laga dhex qaataa la leeyahay marbaa hilibkii aad u kulul markay arkeen mid kastaba gacanta gelisay wixii la cuni karin bay aragtay markaa mid baa la soo booday oo kulkiisa inta ay hayn weyday tuurtay oo deetana tiri kululaa kama naalee sugi kari mayne mid kale ayaa yeedhay oo tiri karan mayno ee kala goo yacni inta uu qaboobayo sugi mayno ee kulaylka inoogu kala jar tu kale ayaa yeedhay oo tiri naa kumbi haanta biyuhu yacni haanta biyuhu ku jiraan ku rid se markiiba u qaboobo tii afraad ayaa tiri naaha ha kanfafee korka saar xagga sara saar hanoo yar qaboobay marka gabdhihii saddexdii kale iska tegi layidhi gabadhii ha kanfafee korka saar tiri baa la guursaday baa la yidhahdaa saasal jiri marka noloshii dhaqankiiba sidaas waa qofka waa la imtixaami jiray xitaa kuwa maaragtay lidayo kuwa ugu roon baa laga dhex qaadan jiray oo sidaas ayay ahaayeen cutubka markaa waxaan galaynaa afraad kulley waa soo dhadhaweeyey baan filaya maa nigu raajiyay ya kulley waa yartaa taabanaynaa xaaladda maanta ayuu ka hadlaya wuxuu leeyahay hugu qofka wax uma taro haddii aanu huwanayn huga anshaxa iyo hufnaanta dharkana waxba kuma taraya haddaad dhaqan wanaagsan iyo anshax wanaagsan aanad lahayn ayuu tilmaamaya markaasi gumaysigiina soo galay marka uuna soo weerarayay wuxuu goobaadu ka bilaabay waxay ahayd inuu halka anshaxa nagala dagaalamo inaad isaga lamid noqoto waa in anshaxaga la burburiyo soo marka oo khamri iyo tumasho iyo dhac iyo boob iyo ciyaar suuqnimo waxa weyna ku soo geliya laakiin bulshada kale xeerane qofka aftahanka ah qofka geesiga ah gabadha gaarida ah ninka waxtar kale uuni ay nolosha wax la dhegaysto lagana dambeeyo ay ahayd isagu markaa wuxuu samaynayaa inuu baabiyo marka kow wuxuu naga soo galay markuu inuu tartardoonayay xagga haweenkana baraynaya xagga haweenku naga soo galay wuxuu odhan jiray marka haweenka waa la dulmiyi jiray haweenka waa la dili jiray haweenka waa la addoonsan jiray haweenka waa la guumaysan jiray laakiin wuxuu tilmaamayaa waxaasi inuusan jirin ay ahayd duruufta nolosha ee ninba meel uu leeyahay inay qallasanaanta nolosha keentay saadii loo dhamay tusaale wuxuu qaadaya khudbadda haweenka tolista haweenka la tolay wuxuu leeyahay duruuf baa keentay cadaysla maaha dhul dugaag leh oo intaasoo rag oonan ninka aanan weligii maaragtay maxaa dhadaaya gabadha aanan arkin markuu cidlo ku helo marka war waxaana la odhan jiray gabadha haddayna bikra ahayn ceeb loo soo jirta reerkooga
سادة قبل ده بكرة يلا إلى هي أنت قسميسي واحد ظروف تكاتين محايدة قبل أقل كيلو فرد ما هيني حولي دون يسيقو بيدي سوبرين يسيق أقل يكسر يسيقو ويسفر يسيقو بيسور دامين يسيقو كل يبدو عندما قسم ريسي مركا واحد يقول إلى من يقول مركا سووا تمامي لكن محبة لي رقم كيني كويس مركو سوق لي وحوليه هاي الشيكة حتى يرودن ككعن كاهي وشنك المدود والله يعمل كليه ويستبيها نعم قفكي انت صور دندل لها واحد مكسور ورينو تلمامي سيدا يقول ديهين دوان صباحا ونهر له وحال ورانيا حق قرضه marka la qadeeyo waxa la oranayaa xagga qaadka marka halosiga qaadka laga kaco waxa la oranayaa xagga kuleelka khamriga marka taas laga soo jeesto waxa la oranayaa xagga jabinta waa xagga maarta xaraanti iyo zinadi marka intaas oo dhan laga soo jeesto ayaa ina rag nolol maalmeed ku gabagabeynaya xagga hurdada walaashii waxa soo rafaad la soo mariyay ka ugu dambeysay maxaan cadaan maxaan furaad ugu dambeysay سلاسة نقطة وما ديوان كدنيا دي مكان كان ده كيني لو كان مني كي رجال بيت كده وحسوس علينا رجال بيت كان انتي سيحمد مكان قاعدة وحاف عنا ده دام حتى قاعدة نبدأ سيد ورشدها الله سميه سيد علوم الله صار يستوعب الوقت عنا قاعدة سبب لكن انتي حمد مكان قاعدة ليه وحشاء يا وميس من بدو يبدو تدي اللي بتحكي كده ولا انتي اللي تكوري يدك حما أيو سود ويستوش على كده تبى ربعين الفلات كوي بالعقل سيرو هذا ترى محيس وتبرها إن حمانته أي قطعين تاني كفي عنا وحلاطة يجي بوليس النقطة يجي بالدولة ده كويس بقى ما ممكن كويس وتجينا الدولة اللي قاعدة نجح إلى أي حد وادك عن كم حلا إن سياسته أي نقطة مال جمهوري الأولى نفسه إن سياسته أي نقطة مال خيانة على شقيه حيل تذكير حما قفك حنا تقول سجتنا واحد كفر لنا يسابق كذا تعمل اللي جاي مادو عتب شنات هذان وجودنا ويرجع تعبنا إن شاء الله أبورت إنجليزي إلهي النبي آدم دمركو أبوري وجنة دي سبعتي جنة عيد الجلية ملاك وسجود يلي كدمنا اللي يريد عدو قالوا كايس كإلهي إبليس كيد دي ما كان هو واقعي كل شيء فيها حلو اللي كدي ولا قصة صار مركي لا قصة صاري وحوت الماما يا وحلا كان الدنيا لك الدنيا وحبابك كمان كرامي بالكورة هذا خبرة لهي ميل على وحلا لك قبلي وحلا عنا أنا قرني وحلا هدوء أنا قرني ميل السعد أنا قرني وحلا كوها رئيسا حوياك كيبا عندك عنا كيبا عنا أنا قرني بالكورة عذاب كي وقط الراب مريض قريب وحد قرني سان ده إنه نرشح سبيضات المني بعدين مركز يستدلين وكي ولا كي كتدلين وقرأ واسد الله أساسه وقبارت سبب الدماغ مركز مدور رفادي ورمحات متعقات على هسان بيقول إنه أجي له قرني بالكورة حويانا أجي له كيف علو كوا سبعوني كيف سبعوني ولا قرني لكن كون كلفت الكيسان معلم إنه ضيق حويان كيف معك هذا سبب كان عناية كان ضاق عناية كل مرة كان كذا يبالي وحكما قبل إنه وحي يجير البالية النبي وهاي وحي يتلبي إلهينا أي لا صلاة لكن حالة عدد مصنع ملاش الكو قال لي سيدي أسعى ده كان كان تعلم أي تعلم يبتي وحلا صومري أنتي ورانا ملاش حتاح أنت ده اللي بكر سنتين واحد بس يسوم بالقول لك طب ولا شيء صدق كنا صاروا لنا وجه وقت هذا الليل هو حكوري وحلا ملاش من هذا مبدأ ما كل الليل هو حيوان رياكشن أنا ذاك يصير من محل وصلية صحيح يا جماعة يكون بس الشيء هذا دمانته نلاش مركب نلاش مركب وضع كمل قبول اللي هو ولا مل كل اللي هو ولا الأول لكن بريجي ولا أنت يا أفريقيا شيء وبالون ولا ممكن يوروب تيجي اللي بتيجي ممكن برا فوق لكن ما كنت تبقى اللي يعني إن واحد سنة مسكرة
marka taas ayuu tilmaamaya waxuu ka hadlayaa diinta iyo culimada ayuu ka hadlaya waxuu leeyahay culimadu dee islaamnimo iyo dhaqan wanaagsan bay noola yimaadeen way wadaan laakiin dhibtaasi taa waxa weeyaan ummadda inaad dhaqan ka bedeshidaad rabtid waa inaad dhaqankayga garanaysaa soo waa in qaabka loola hadla aad garanaysa waa inaad maskaxdooda qaabka loo kasbada aad garanaysa culimadiina taaba ka maqan buu markaa tilmaamaya qaybtaa waxaa garanaya abwaaniinta iyaa garanaya bu sida aniga oo kalaa u leeyahay oo garanaysa dariiqii annagaa garanayna laakiin cidda inay cid maraysaa loo baahan waayo waa culimmadii culimmadu marka waxay u baahan tahay inay dadka dhaqankooga afkooga culimo idinoo dad quraan u fasirayso carabi ugu fasiraysa ayuu tilmaamaya marka ummaddani dadka haddaad dhaqankoogii iyo afkoogii iyo qaabkii looga hadlaya dad garanaynin wax badan ma soo kordhin karaan buu markaa uu tilmaamaya wuxuu leeyahay markaa annagu haddaan halabuurkii nahay waa aanu haynaa marinka ummadda loo maro culimaduna waxay haysaa cilmigii marinka la marin lahaa ujeeddadaas waxay la yidhaahdaa isbuuxin marka ninka nolosha fahansan diintuna in nolosha wax laga bedelo baan sooma ka nolosha fahantin horta nolosha fahantin baa ka fiican inaad nusuusta nolosha ku dabaqay marka waxaa la yidhahdaa fiqhu tanziiliga fiqiga la yidhahdaa qaybta in nusuusta waaqica lagu sameeyo horta inaad waaqica fahansan tahay ayaa muhiimad ya waaqica inaad fahansan tahay waxaa loo keenay markii ugu horreysay dee wadannada sacuudiga u yimiday raadiyo shaydaan baa ka dhex hadlay bay dhahay war meesuu gaalka looga dhex hadlaya idinkuna diinta iyo qur-aanka ka dhex akriyo qof aanan kula jeedin ba uga sheeg way garan waayay taswiirtu waa xaraan intuu la yidhi halkaa la fadhiistay kadib maxaa ka dhashay gaalka intuu yimid 10,000 oo kilomitir dhul ka hooseeya intuu soo sawiray inuu shidaal ugu jira gaalka markaa waa taswiirta iyagu ay eg هي دينا ما حرام بس دينا عيدي ولا سنة ولا شيء خلاص هذا تصميم فقهي شرعي عام وما فائدة كجت دوكو بيبقى أنت طبعا كل أمتر لصاصة ولا بلو لكن الشيء اللي أنا قصة صار يمسك قصية لا أنت معدي 20 بقولك والله ما قصية مني سلاس بمركاه مركا dadku maanta iyo mooganaa baa lagu jira waa qofku xilka saaran oo moogan yahay aakhiro waa la moogan yahay dhaqankii waa la moogan yahay noloshii waa laga tegey hankii uu dhammaaday hunguri baa halkiisa ku dadku wada raaxo bay wada doonayaan raaxo aanan tacab lahayn baa lagu wada doonaa dhinta jirtay waxuu ka hadlayaa waa raaxo aanan loo soo tacbin marka inta badan buuggiisa wuxuu macno u yahay haddaad dhegaysatiin dabaguwan dabagiisa leedahay YouTube ka keenaysa isagoo waliba si fiican uga sheekeynaya ya dadku xitaa inay xaraga darteed inay dadna weelal intay liifinka kabar idin loo sameeyo banaan lagu bixiyay weelal wada fooraro maxaa lagu faraa waa muunad baa lagu leeyahay waa naamunad la yidhaahdo halkaa laga gaadhay yani hunguriga halkaa lagu gaadhay haddii toole wixii wax lagu cunayay in lagu xaro qurxaan loo haysto marka dambe marka dardaas uu bixinay waa reer galbeed oo dunida baabiinaysi marka dambe inaga baabiin buu leeyahay hubka iyo waxaan la soo baxdeen wuxuu tilmaamayaa uu leeyahay dhaanwade ayuu ka hadlaya lamu la dardaarmaya wuxuu leeyahay hubka aad samaynaysiin hubku ma yaqaano qofka sameeyey kan sameeyey labadaba u dilaa buu leeyahay nuclear-ka aad samaysay adigu marka dambe ku noqon cidda aad dulmaysid dilaysid ayuu gacanta u gali markuu gacanta u galana kula diro iska kaacilin dulmigan iyo waxaan iska daayay ragoo kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaada wiil soo nin kastoo kibro meel isgaarsiya markuu da duli intaas waxa daaradood badlidu soo martay uu tilmaamay marka wuxuu tusaale ugu soo qaadanaya wiilwaan oo leeyahay ninka xoogga weynaa ee meel kasta nin kasta oo raganimo sheegtay jabiyay ee la dagaalay dumiyay markii uu gaboobay uu jilcay nin lamidu marka qaar arkay oo wixii uu ragga sidoo yari jiray uu ka kari waayay wuxuu sameeyay bal la gar sameeyo xitaa gabadhiisii tuu weydaa soo saar kari waayay isaguna markii dambe uu sameeyay hooyadii uu dhisay markaa uu dhahay bal rag ka warran baa lagu yidho wuxuu leeyahay inaan rag habartiina u tiiyayo walaalo wuxuu ku dhaafaa waan waayay buu markaa tilmaamaya
marka waxaan gaadhay marka casrigeedii tolo akhir zaman baa lagu jiraa dadku dhaqankooda iyo diintoodii bay ka tegeen bay leeyihiin ibliis baa dunidan maamulaya hankii iyo hungurigii baa ayaa dunidii baabi'iyey taabu tilmaamaya qaybta dambe wuxuu ka hadlayaa gumaysigu markuu noo yimid dadku way diideen laakiin tartiib buu gumaysigu dadka u dhex galay ilaa intii xumeed intuu qabsaday uu kuwa kale ku guumaystay markuu meesha ka tegayna kuwii xumaabu meesha ayuu dhigay dadku haddii toole waxay rabeen way waayeen xumaanta ayaa model noqotay waad arkaysaa bal lixdameeyadii iyo toddobaatameeyadii daawo gabdhaha maxaa loo xidhi jiray dhar wada iskuullada markay tagay waad arki jirin sooma xijaabku ceeb u ah sagaashameeyadii laga soo garay sagaashan ka dambeeyey dadku diinta dib loo soo celiyey maxaa loola jiray shareerato ya shaqaalaha habeenkii shaqaysataa loola jiray sooma عين عم يرجع للمجد واحد حمام يقرصنا يسراب المجد الكلام اللي قاله حمام بلوه شيوعية الإسلام هو باب يسمي وحكلوا تلمام يا مركز صومالي لان إن الصومالي يكون بيرتجعيل دي ضد بيقول بيضر الشروط هي النظام يحير على اللي دقل هي سكاب بيرتج كدي مركي أي وحي أي رتي أين اللي كل مين ماشي أي عدالات كويننا هذا ما يكسر بوديو إمك وإلا ولا هلا وهدي اللي يسكن نقول يانا حير لو هو ولا نقول kuwa kalena saasoo kale xeer ay kala nidaamka marka tilmaamayaan marka buugu qaab uga hadlaya waxyaabo badan oo muhiim oo badan kulli diiwaan iska taataabanay oo laakiin waxaan dareensiinaynaa qiimaha uu buugu leeyahay ama marka waxaan ku tali lahaa jaamacadda manhajka af Soomaaliga sanadka koobaad in asakoos loo dhigo ardada 12 iyo 12 سابورتيف لوجا ده أو معلم كصومالي كده يعني ومارت بيجو محايا له واحد مرش يعني تاريخ يعني يدقق يعني يفكر يعني يهدي يعني يحب بقول ده وأبوه كمان كان قيمة عالية مرة أنا من تاس ما كنت تيجي فكر قديم عنا يلا سوق بنا والناس تيجي والسلام عليكم